ولا ليال طبيعتها ugu qiimaha badan ee Allah subhanahu wa ta'ala uu bixiyo qofkuna uu meel ku gaaro bulshana haday ku sifowdo meel ay ku gaarayso waa in la yeesho hansara in la yeesho wax kasto la qabanayo ama ha noqoto arimaheena adduunyo ama ha noqoto arimaha aakhiro iyo cibaadooyinka aynu gudanayno qofku mar walba inuu ku dadaalo sida ugu haboon iyo sida ugu fiican inuu u sameeyo Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa aayado badan iyo qisooyin badan oo taala inoogu bayaaminayo ayuu Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa inooga qisooday nabi maxamed alayhi salatu wasalaam sida soo kale waa ina faray waana inooga qisooday siyaabo kala duwan nabigu alayhi salatu wasalaam waa inoogu guubaabiyay waxa tusaale inoogu filan nabiga alayhi salatu wasalaam isagoo inala talinaya ina xasuusinaya halka inuu u soconno wuxuu nabigu alayhi salatu wasalaam إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن أو لنبي عليه الصلاة والسلام مركاد إلهي جنة ويدي سريسان إلهي مركاد جنة كطلبيسان janno kaliya ha weydiisanina ee waxaad weydiisataan jannada halkeeda ugu sareysa ilaahay inuu idin galiyo dad badan waxa laga yaabaa inay yiraahdaan war janna hadan bayse horta cadaabka alla iyo cadhadiisa ma ka badbaada duurkayga aan iska wareegay naarta war hadaan ka badbaado falillaahi alhamd mid labaad waxa laga yaabaa inuu yiraahdo jannada bayaan gelina hadaan albaabkeeda iyo iridkiisa aan fariisto udgoonkeeda iyo ahlu jannuhu waxay iga soo tuuraan banaanka inta hadaan helo cadaabkana aan ka badbaado waa igu filanta mid waxa laga yaabaa inuu yiraahdo jannada aan galo halka ugu hooseysana aan galo horta jannada baan anigu doonay wuxuu leeyahay nabigu alayhi salatu wasalaam kullayba ilaahay janno waa la weydiisanayaa ilaahay jannaha hadaa weydiisanaysaan halka ugu sareysa la weydiisto jannadu waa meel uu galayo qof Allah subhanahu wa ta'ala raali uu ka noqday wuxuu nabigu ku tilmaamay jannadu inay tahay badeecada Allah subhanahu wa ta'ala ee qaaliga ah ala inna sil'ata allahi ghaliya ilaahay badeecadu idinka iibinaya waa qaali ala inna sil'ata allahi aljanna إلهي بداعدي سوى جنة وحكلم معه شقو يتعب يسوجيد سام الليل قرآن أخرس صلاة الليل عباده صلاة لتكنيه أعمال آد أبضان وعليس كذا لها أي نجحية ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استقوا هنكا كرو قاضية أيا وحا أوليه حتى جنة إلهي أدل ويدي سنيو إلهي وجنة إيقلي وكلي يا الله أوران إلهي جنة نوعيدا ugu sareysa la weydiisto jannatul firdaws Allah subhanahu wa ta'ala laga dalbado wuxuu nabigu ku baraya alayhi salatu wasalaam waxa wanaagsan ee la sameeyo la niyoonayo lagu dhaqaaqayo waxyaabaha soo dhan xitaa haduu wanaag yahay wanaaga ka ugu fiican inaad tigsato halkiisa ugu wanaagsanna inaad ka gasho ayuu nabigu alayhi salatu wasalaam inagu boorinay وحلي النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور إلهي وحو جعليه وحيابها كوذا وناكسا أسر رياء الله وجعليه كوذا هو سيلي تنا الله سبحانه وتعالى مجعله كتابك الله سبحانه وتعالى وحكو السغن بنو إسرائيل أي الله سبحانه وتعالى النعمي وwaxa samada uga soo degayay shimbir shiilan iyo sharaab aad u macaan
ayaa qof walba lab iyo dhadig mid weyn iyo mid yarba loo saaraya meesha uu joogo shimbirta shiilan waxa weeye xagga Allah laga soo shiilay xagga Allah laga soo shiilay macnaheedu waa la fahmaya maanta hudheeladayna wax ka cunno hudheel hebel milixdu ku badiya kan saliidu ku badiya kan waa qallajiya kan waa jilciya qof badooq buu leeyahay laakiin xagga Allah laga soo shiilay qof walba waa qancinaysa bina aadan ma soo shiilin ilaahay baa samada uga soo dajinaya iyadoo habaysan oo shiilan sharaabkii ugu macaanaana ilaahay baa u soo xulay qof walba labadaas la isu saaray markay muddo wadeen ayay waxay yiraahdeen la nasbira ala ta'amin waahid cunto kaliya waa nagu indha badatay bay yiraahdeen ee waxaanu doonaynaa in loo bedelo cuntada ay helayeen wax ka wanaagsan de maskaxdoodu waxa weeye keeni mayso markii la yiri dalbada wax la idin ku bedelo waxay dalbadeen toon iyo basal iyo misir waxyaabaha noocaas bay dalbadeen hadasiha wa basaliha wa fumiha cuntooyinka noocaas ayay waxa weeye ku bedesheen ilaahay waa la yaaba quraankiisa aanu ku sheegay atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr maki qiimaha badnaa inta ka tagtaan baad ku bedelanaysaan mid ka liita maanta da shimbir shiilan iyo misir ama waxa weeye basal ama toon cidina isku bedelan mayso ilaahay waa la yaaba waxa Allah subhanahu wa ta'ala inooga qisooday qisooyin kale oo lamida dad ilaahay cilmi siiyay wax fahan siiyay oo cilmigoodii ka dhaqaajiyay ilaahay wuxuu ku tilmaamay kamathalil kalb in cilmi labo mustawa joogay ducadiisa la ajiibo markuu ilaahay caasiyo ilaahay waxa uu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa aayaadka yagii baanu siinay cilmiga yagii baanu barnay sumcad iyo sharaf baa la siiyay laakiin wuxuu ka doorbiday adduunyo raacay tusaalihiisu wuxuu la mid yahay ay haddii wax la siiyana waa kugu soo ordaya haddii la didiyo la eriyana waa carabku la laadinaya mar walba waa ku hoos ordaya ilaahay wuxuu ku tusaaleeyay waxa weeye aybu ku tusaaleeyay yahuudi cilmiga la baray ee aan ku amal falin ee culimada ahaa kamathali alhimari yahmilu asfara tusaalahoodii waxa laga dhigay sida waxa weeye dameerka oo kala laga dhigay walaalayaal dadku wuxuu isku dhaafaa hanka ayuu isku dhaafaa sida uu fakarayo kullu inaa'in bima fihi yandah qof walba ficilka ka soo baxaya hadallada ka soo baxaya waxa uu ku foogan yahay wuxuu u kalahayo u jarmaadayo waxa uu doonaya inuu ku dhaqaaqayo wuxuu gacanta ku hayaaba waa waxa niyada uu ku hayo ee uu ku talagalay ee uu doonayo ee hankiisu uu yahay weey hadii hankaagu yahay shirkad hebel inaad ka noqoto weeshmaan ka noqoto ilaaliyaad ka noqoto bodyguard aad ka noqoto albaabka fadhiisanaya ama mid xaqoon nadiifiya inaad ka noqoto hankaagu uu noqdo kii kula midka ahaana uu hankiisu yahay inuu maamulo dhowr sano ka bacdi xaalku wuxuu ku dambeynaya sidaas uu ku dambeynaya waayo midna wuxuu tiigsanayaa inuu noqdo weeshmaan ama mid meesha xaqaya midna wuxuu tiigsanayaa waxa weeye inuu maamulo mid waliba asbaabteedii buu u shaqaysanaya mid waxbarasho u dhaqaaqaya xiriido dadaal sumcad ilaa uu halka ka gaaro ka kalana waxa weeye wadadeedii uu ku gaari lahaa halka uu doonayo ayuu gaaraya waxa dhacday saddex nin oo dameer la yaala oo gaari dameerka ku shaqaysta ayaa maaliyagoo soo daalay oo nasanayay sheekaysteen waxay yiraahdeen maxaad doonaysaa nin walba maxaad doonaysaa inaad noqoto mid baa bilaabo wuxuu yiri anigu waxaan doonayaa dalkan aynu joogno inaan madaxweyne ka noqdo waa nin weyn oo hadda de gaari ximaar wata gaari dameer wata
labadii kale intaanay wax kala sheegan bay aad ugu qosleen labadii mid waxa uu haddaad madaxweyne noqoto qolyaha gaadhi ximaarlayaashan gudoomiye u noqonaya teetalka ila doon dameerlayaasha inaad maamulo iga dhigto oo aan hogaamiye u noqdo taasaan kaa codsanayaa buu ka labaadna isagoo ku jeesjeesaya ayaa wuxuu yidhi haddii lagu gaadhsiiyaba xilkaa mid uma kaa codsanaya intaadii soo qabato dameerkayga isaar welibana xagga dambe ii sii jeedi si maqluuba ii saar oo dameerka xaggiisa dambaan u jeesanaya waxa weeye maryahana iga siib idhangade magaaladana igu soo wareeji anigoo sidaas oo waxa weeye ifadeexade waayo wuxuu isleeyahay suuragal maaha ninkan inuu dalka ka taliyo hadda halkan kula jooga hankiisa isaga waxa ka dhaadhacsan halkaa meel ka sarraysa inaan la gaadhay waxa mustaxiil la noqotay ninkan intuu halkaa ka baxo inuu gaadho dalka inuu taliyo muddo yar ka bacdi ciidamadu ninkii galay waa dadaalay taliyuu noqday jalan buu noqday waa sii dallacay wasiir buu noqday ku-xigeen buu noqday dhowr sano ka bacdi ninkii dalkii qacantu ku dhigay wuxuu yidhi labadaydii ninaan saaxiibada haynaha laygu yeedho midna wuxuu yidhi dameerlayaasha intuu isugu yeedho ninkaasaa guddoomiye idin ah kii kalena waxaa la saaray gaadhi ximaarkii baa la saaray dabeedna magaaladii baa lagu soo wareejiyey iyadoo la fadeexadaynayo wuxuu yidhi nin walba dalabkiisaan u fulinayay adduunyada intaynu joogno dadku saasay u qaybsamayaan 4 nin oo ay saxaabadii dhaleen baa kacbadii isugu yimi waxay yidhaahdeen nin walba kacbadii bay hoos joogaan nin walba waxa sheegto waxa ku jira cabdullaahi ibn cumar ibn al-khataab uu dhalay wuxuu yidhi anigu waxaan dalbanayaa ilaahay jannadiisa inuu igeeyo dalab labaad malihi عبد الله بن الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة بعد علي سونا وصحابي وحل يرادقنا وحطلبو وحول يرادقنا وحن طلبنا يا مكة يا مدينة إن كان نقضي مدحويني وأن كتلي ولكن مصعب بن الزبير بن العوام أيا وحل يرادقنا وحطلبو وحول يرادقنا وحن طلبنا يا laba gabdhood oo xilliga gabdhihii ugu qaalisanaaya waa Aisha bint al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib oo nabiga ku abtirsanaysay iyo Sukayna Aisha bint Talha iyo Sukayna bint al-Husayn gabadh ka soo jeeday Talha ibn Ubaydillah tobankii nin jannada loogu bushaareeyay oo aqoon iyo qurux iyo wanaag iyo wax walba lagu tilmaamay magac iyo maamuusba iyo Sukayna oo Hussein ibn Ali ibn Abi Talib uu dhalay labada gabdhood oo marka dunida ka tilmaana wuxuu yiri labada inaan isu keeno waa adag tahay la isu keeno oo ogtiiba gabadhu haday qiimo yeelato dee lama guursado oo haday meel joogto aad bay u adag tahay labada inuu meel isugu wada keenan doonayaa buu waxa kale doonayaa Ciraaqna inaan ka taliyo labadii magaalo marka ugu waaweynaa inaan iyadana ka taliyaan doonay ninka afraad wuxuu ahaa Abdul Malik ibn Marwan wuxuu yiri anigu waxaan doonayaa muslimku meel uu jooga inaan u taliyo khaliifata almuslimiin muslimiinta khaliiftoodan doonayaa inaan noqdo ninka u taliya meel ay joogaanba dhowr sano ka bacdi ayaa ninka la yiraahdo Abdullah ibn Zubayr dawlad wuxuu ka aasaasay Xijaaz Makka iyo Madiina maamul buu ka dhisay Makka iyo Madiina waa ka taliyay madaxweynena waa ka noqday laakiin xukunkii guud waa lagu haystay wuxuu qacanta si fiican ugu dhigay Makka iyo Madiina meelaha kalena ciidamadiisa ku maqnaa inuu qabsado doonayo muslimka oo dhan hankiisi mar hadduu ahaa Makka iyo Madiina inuu ka taliyo in muddo abu ka talinaya markii dambana Xajaaj baa loo soo diro waa laga qaaday waana la dilay xukunkiisu wuxuu ku dhamaaday Makka iyo Madiina waa intuu niyada ku hayay walaalkii Mus'ab Sukayna gabadhii la oranayay iyo Aisha bint Talha labadii gabdhoodba waa helo waa guursaday
ciraaqna barasaab buu ka noqdo waa ka taliyey isaguna wixii uu damacsanaa waa helay cabdilmalik ibnu marwaan oo yidhi waxaan doonayaa muslimkoo dhan inaan u taliyo taladii muslimkoo dhan buu qacanta ku dhigay waxaa ugu dambeeyey ninkaas cabdullaahi ibnu zubayr oo maka iyo madiine ka talinayay xajaaj buu ku salliday dabeedna xajaaj baa uga dhiciyey wuxuu kula wareegay maka iyo madiine iyo baqhdaad iyo muslim meel uu joogaba isaga ayaa qacanta ku dhigay wuxuu gaadhay halkii uu doonayay khaliifat almuslimiin buu noqday waxaa soo hadhay cabdullaahi ibnu cumar dalabkiisu wuxuu ahaa anigu jannaan doonaya mar haddii kuwii kale jannadii ay gaadheen wixii ay doonayeen ay gaadheen isagana waa loo filayaa ahluljanna inuu yahay waana saxaabada jannada loogu bushaareeyey loogu riyooday ayuu waxa weeye ka mid yahay camalkiisa iyo cibaadadiisa iyo dadaalkiisa adduunyana wixii laga arkayey laga ogaadayna waa nin sida la filaya loo badanaya ahluljanna wey isagana waa u rajaynaynaa inuu waxa weeye muraadkiisi gaadhay waxay tusaale u tahay waxa qofku uu niyadda geliyo ee uu go'aansado himilihiisa noqda ee uu ku talagalo hadduu tacab ku daro inuu gaadhayo xilli uu gaadhaba khudbadaydu maanta waxay ku saabsan tahay intaasoo dhan waa hordhac weeye howlo badan baa ina hor yaalla howlaha badan ee adduunyo kala duwan mar waxa ay tahay waa cibaadadaada salaadaadu ma mid iska ridabaa mise waa salaadii ugu wanaagsanayd waa salaadaad ku khushuucday waa hadiyad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u qadimayso waa nuucee cibaadooyinka kale aynu samaynayno ayaa la mida waxa la mida oo hanka ku saabsan ilaahay baa kuu nicmeeyey caafimaad ku siiyey masaariiftaadii ku siiyey magac iyo maamuus ku siiyey muuqaal wanaagsan ku siiyey ku karaameeyey ehel iyo qaraabo ku siiyey markaad eegto dhinac walba alle subxaanahu wa tacaala qof baa halkay u joogto waa ku nicmeeyey nicmada noocaasana ujeedduu ka leeyahay inaad alle subxaanahu wa tacaala ugu cibaadaysato oo aad ku xusto maxaad ugu abaalgudday ma macaasidiisa iyo wax ilaahay cadhogelinaya baad u adeegsanaysaa mise hankaaga iyo gobonnimadaada iyo wanaaggaagu wuxuu alla ku siiyey inaad ugaga mahad celiso inaad u adeegsato wixii alle subxaanahu wa tacaala uu jeclaa iyo wixii alle subxaanahu wa tacaala aad ku raaligelinaysay maanta wax ka qiimo badan ma jiro ilaahay ku abuurtay inuu raalli kaa noqdo jannaati cadn ومساكن طيبة في جنات عدن markuu ilaahay jannadii ka soo sheekeeyey guryaheeda nicmooyinkeeda qofka galaa weligiiba inuu ku waarayo waxa yaala markii laga sheekeeyey waxa lagu soo gabagabeeyey wa ridwaanun min allaahi akbar waxaaba waxa ka weyn ilaahay inuu raalli kaa noqdo adduunyada intaad joogto hankaagu inuu yahay alla subxaanahu wa tacaala raalli inuu kaa noqdo inaad tiigsanayso gurigaaga saad u dhaqayso hanbay u baahanta ubadka aad soo saarayso ubad qiimale inuu noqdo hanbay u baahan tahay shaqada aad ka shaqaynayso iyo mas-uuliyadda aad hayso hanbay u baahan tahay halka aad joogto marba inaad hore uga sii socoto qof baa halkii uu shaqada ka bilaabay 20 sano beeshii ku noqonaya ku fadhiisanaya oo waxa weeye halka kaga hadhaya qofna waxa laga yaabaa dhowr sano gudahood inuu meesha uu soo galay muddo yar hadday ciidanka tahay hadday xilalka kala duwan tahay hadday shirkadaha tahay barefadka hadday businesskiisa tahay waxa laga yaabaa muddo yar oo kooban meel fiican inuu gaadho han buu leeyahay diinteennuna waa soo dhoweynaysa qofku waxa uu hayo mar walba inaanu ku kaaftoomin ee mar walba uu hore u sii socdo cumar ibn cabdilcasiis wuxuu yidhi waxaan leeyahay nafsan tawaaqa naf mar walba wax ku taamaysaan leeyahay buu waxaan ku taamay buu inaan guursado faatima gabadhii loo gabiyey layidhi bintu lkhaliifati waalkhaliifatu zawjuha ukhtu lkhalaa'ifi waalkhaliifatu jadduha waa inan walaaladeed 4 nin oo la dhashay baa muslimiintoo dhan madax u ahaa walaalkeed khaliif buu ahaa aabbaheedna khaliif buu ahaa
awowgeedna khaliif buu ahaa odaygeeduna khaliif buu noqday waa Umar ibn Abdul Aziz gabadhaasaan doonay buu yiri waan helay waxaan doonay inaan Masar ka taliyo waan helay waxaan doonay waxaasan doonay waan gaaray buu waxa ii soo hadhay buu yiri janno kaliya jannadana insha Allah ta'ala waan heli doonaa buu qofka muslimka ah naftiisu mar walba inay hore u socoto adduunyo aakhiraba maanta dad baa wax dooranaya dadna waa la dooranaya dadka la dooranaya xukunka doonaya hankoodu muxuu yahay ma inay ummadan wax ka bedelaan bay doonayaan ma inay hanti ka sameeyaan bay doonayaan ma inay magac kaliya yeeshaan bay doonayaan ilaahay baa niyooyinkooda inaga og laakiin ka inaga waxayna taraya waa ka markuu halka gaaro hankiisu yahay han aad u sareeya doonaya ummadan inuu wax ka bedelo nolosheeda wax ka bedelo nabadgelyadeeda wax ka bedelo halka ay joogan meel ka fiican inuu gaarsiiyo ka noocaasa ummadda danteedu ay ku jirtaan ka dooranaya laftiis ama xildhibaan ha noqdo ama ka xildhibaanka laftiisa soo dooranaya ha noqdo ee ka sii horeeya ama madax dhaqameedka ha noqoto ka sii horeeya hankoodu muxuu yahay maka xisaabihiisu ay bataan ee jeebabka u buuxiya inay meesha gaarsiiyaanba mise waxa weeye mid ummadda wax taraya wax ku soo kordhinaya intaanay ummadda matalan isagiisii soo doortay si fiican u matalaya maka noocaasa hankiisa iyo maskaxdiisa ka guuxaysa waa su'aalo la doonaya qof waliba inuu isweydiiyo bulshaweynta laftoodu kaalinta iyo dowrka ay ku leeyihiin maxay tahay waxaa soo dhan waa waxyaabo aynu u baahannahay insha Allah ta'ala fikirkeenu inuu sare noqdo maanta dad badan waxay danaynayaan xilalka inay ka muuqdaan laakiin ma danaynayaan qaabka ay uga muuqanayaan dad badan waxay danaynayaan wasiir inay yeeshaan xildhibaan inay yeeshaan kuraasta sare inay ku guuleystaan oo la yiraahdo nin cidda ka soo jeeda xilka haya intaas hankoodu ku dhan yahay si fiican ma ummatalay sumcadoodii ma hagaajiyay ummadda wax ma ku soo kordhiyay waxa weeye waxyaabaha soo dhan waxa laga yaabaa dad badan inaanay danayn ma ku jirnaa ma ka muuqanaa ma ka soo baxnay haddii hankaagu uu noqdo waa taxaalka maanta aynu ku sugannahay iyadoo la leeyahay khayraadkii badda kii bariga macaadin shidaal batrool waxyaabo badan la inagu sheegay nambarkeenuna uu kooban yahay haddana waxa weeye duruuf qallafsan haday tahay dhaqaale haday tahay nabadgeliyo waxa weeye oo badan aynu ka cabanayno walaalayaal taasi waxay ka bilaabmaysaa qof walba dareenka uu hayo iyo waxa ka guuxaya inuu noqdo wax sareeya inuu noqdo waxaan kaga baxaya ku soo gabagabaynaya wadankan bariga Afrika inuu wada nool Rwanda oo maanta de warkiisa la hayo waxa ka dhacay dagaal ahliya waxa la iska dilay wax milyan ku dhow inaga waxaanu laacib saqiir bayahay dhowr kun baa laga yaabaa inay nagu kala dhex dhinteen malaayiin baa la iska dilay Paul Kagame wuxuu xukunka gacanta ku dhigay iyadoo tolkii laga dilay 800,000 oo qof laga xasuuqay tolkii ayuu madaxweynihii dalka noqday intuu dadkii isugu yeeray awri dalkeenu wada dhisanaynaa caasimadoodu dhowr iyo kontonka dawladeed ee Afrika caasimada ugu nadaafada badan bay kaalinta koowaad u galeen ugu horumarsan muddo yaro kooban buu dalkaas isku bedelay nin askari ayuu ah oo aad naftiisa ugu baqaya oo tolkii laga tira badnaa oo boqolaal kun laga dilay oo duruuftu ku adag tahay markuu xukunkii yimaankiisu wuxuu isu bedelay dadku inay wada noolaadaan oo dalka meel u gaarsiiyay waana gaarsiiyay maanta hal qof oo hankaale hadii uu noo soo baxo isbedel aad u weyn baa dadku dareemaya laakiin hanku intuu yahay xoola urursi iyo magac doon iyo ninku inuu ku wareego tolkii iyo qaraabadii qaran aanu u fakarin tanoocaas
tiihii banuu israa'iil 40 sano ayay subaxii intay ka lahaan bay habeenkii waxay ku soo laabanayeen meeshii ay ka kalaheen bay ku soo laabanayeen 40 sanatan yatiihuuna fi al-ardi bu ilaahay 40 sano ay wareersanaayeen oo dunida ay ku wareegayeen waxaanu maraynaa hadda imsaynu maraynaa 30 sano inuu si cagacagaynayna ma afartakeenu talo dhammayn doonaa mise faraja loo degdega iman doona ilaahay baynu ka baryaynaa xaalka inuu hagaajiyo madaxdana inuu wanaajiyo dadka wax ka bedela Allah subhanahu wa ta'ala uu soo saaro kuwa soo saarayana ilaahay dad wanaagsan inuu ka dhigo tawfiiqda Allah subhanahu wa ta'ala innaga iyaga Allah subhanahu wa ta'ala ha waafajiyo xaaladaha iyo duruufaha kala duwan Allah subhanahu wa ta'ala ha hagaajiyo nabadgelyada Allah subhanahu wa ta'ala ha hagaajiyo duruufta maciishadeeda dhaqaale Allah subhanahu wa ta'ala inuu hagaajiyo maamulka Allah subhanahu wa ta'ala maamul caadila oo wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala inooga dhigo ka soo socdana Allah subhanahu wa ta'ala inuu wanaajiyo اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا إلهي وددك التلدود وحد وقدب تكود وقونا أكسن إلهي وقدب إدنتو ذاك شقيني إلهي وحد كيلا ليساكوا كدنا يسنيا أمد خيرا وقم مغنين كقيب قادنا يدب دقد يا حمانتا كقيب قادنا يا إلهي أمد كقبو إلهي واكو صوصارين إلهي وشانس كاسوس على ما أنت وحد سيسا قف dalka iyo dadkaba wax ka bedela ayaan Allah subhanahu wa ta'ala uga baryeynaa culimadii wanaagsanaa waxay yiraahdeen hadii ilaahay duca la ajiibaya ilaahay nasiin laha waxaan ugu ducayn lahayn madaxweynaha waayo haduu hagaago ummadoo dhan baa hagaagaysa marka mar walba in loo duceeyo waxa weeye waa mid loo baahan yahay ka hadayna la joogada xilligiis waa gabagabo laakiin ducada waxaanu u badinaynaa ka soo socda dadka dooranaya ilaahay inuu waafajiyo marka uu guuleystana ilaahay inuu khayrka waafajiyo ayaynu Allah subhanahu wa ta'ala baryeynaa han baan ka hadlayay hankuna waa inuu noqdaa ka dadka u fiican maaha kaanu isku cidanahay kaanu isnaqaano ka shaqada isiinaya kaanu iswajiga naqaano kaan jaan iska helayo ya waa hankii hooseeyay aynu ka hadlaynay markaad naftaada u fakarto inaad adigu wax hesho qarankuna uu baabaayo hanka liitama jiro marka taana ilaahay baynu ka baryaynaa ala wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum al-amin alladhi amarakum Allah bis-salati was-salam alayhi biqawlihi fi kitabihi al-mubin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima